madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay kacdoon shacab oo ka dhana dawladda federaalka. Masar Xasan waxa uu tilmaamay in xukuumaddiisu halis ugu jirto in looga takhaluso gadood shacab oo la mid ah kii saaxadda ka saaray taliskii militariga ahaa Siyaad Barre iyo sidoo kale isu soo baxyadii dhiiggu ku daatay ee xukunka khasab loogaga dhaadhiciyay keligood taliyayaashii wadamada Carabta qaarkood ka arrimin jiray. xasan sheekh ayaa walaac xoogan ka muujiyay inuu rabitaanka shacbiga isbedel xilligan uu dhalin karo kacdoonaha Soomaaliya ka soo kaban karin oo sababaya in nidaamka dawliga waxyeello soo gaadho. waa sida uu hadalkiisa u dhigay. warbaahinta dalka ayaa hadalka madaxweyne xasan ka soo xiganaysa wakaalada wararka Soona ee ku hadasha afka dawladda Soomaaliya. hadalkani ka soo yeeray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku soo beegmaya xilli dareenka shucuurta shacbiga Soomaaliya aad u kacsan tahay loona diyaar garoobayo in khamiista isbuucan gudihiisa Muqdisho lagu soo dhaweeyo hogaamiyaha ugu shacbiyada badan hanmaaganayaasha xilligan waa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in imaashihiisa Muqdisho saameyn weyn ku yeelan doono xukuumadda madaxweyne xasan maadaama uu mas'uulkan yahay shakhsiga kaliya ee Soomaalidu idilkeed ku midaysan tahay taageeradiisa waana ta keentay in walwalka madaxweynaha iyo xukuumaddu wadnaha farta ku hayso cabsida ay ka qabto mawjadaha taageerayaasha Farmaajo oo dowlatus ah awoodiisa. jawiye siyaasadeed oo cusub ayaa u curtay dalka waxaana la wajahay marxaladaha kala guurka. Soomaaliyana waxay geli doontaa doorashooyin baarlamaan iyo mid madaxtinimo xilli shacbigu diyaar u yihiin in dalka uu ka dhaco isbedel kaasoo ka imanaya go'aankooda oo ah inay baarlamaanka imanaya ku sanduleeyaan cidda maankoodu la haysto taasoo muuqata in Farmaajo yahay hogaamiyaha rajada ee Soomaalidu leedahay. haddaba maalinta khamiista dabayaaqada isbuucan ayaa lagu wadaa in Masar Farmaajo uu ka soo dego magaalada Muqdisho.